gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo qayb ka mid ah warfidyanada ugu waramayay maanta magaalada Burco gaar ahaan xafiiskiisa ayaa waxa uu gudoomiyuhu faahfaahin ka bixiyay qorshayaasha ay golaha deegaanka ee degmada Burco ay sanadkani ku wajahayaan horumarinta iyo sidoo kale tabliicda magaalada Burco. Gudoomiye Maxamed Yuusuf Muraad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in sanadkan qorshayaashooda ay ku wajahan yihiin dayactirka iyo kor u qaadista goobaha waxbarashada iyo sidoo kale xarumaha caafimaadka. 2020ga qorshayaashii aan ku tala galay inaan hirgelino oo u badan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ayay ugu badan yihiin mashaariicdu. hadday noqoto rehabilitationka MCH-yada, hadday noqoto shaqaalihii mushaharkaan siin jirnay oo aan kordhinay, oo ama shaqaale hoosaadkii iyo macallimiintii iyo nursingkii oo kale oo aan kordhinay, iyo wadooyinkii oo magaalada hadda ka soconayo si fiican ilaa 9 wado magaalada imika laga bilaabay. sanadkan waxaa noo qorshaysanay inahaas ay u badan yihiin. xooggan waxaan saaraynaa biidnillaah dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada oo dugsiyadii aan sameynay imika qaar farta laga qaaday oo xadhiga laga jari doono insha Allah wiiga dambe. sanadkan wax qabadkayga waxaan isleeyahay inta badan wuxuu u badan doonaa nolosha asaaskeeda iyo kaabayaasha dhaqaalaha xagga wadooyinka. waxaa jira iyaguna kulli bridgeyo qaarna ay soconayaan, qaarna imika aan dhagax dhignay. kuwaana waxaan isleeyahay wixii dhaqaale loo helo annagoo waliba sanadkan aad iyo aad hunguri uga qabna barnaamijka la yiraahdo sanduuqa dhaqaalaha SDF-ta inaanu bridge badan magaalada ay u baahan tahay aan ka hirgelino. geesta kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco waxa uu ka hadlay kulan ay maanta xafiiskiisa ku wada yeesheen ganacsatada gobolka Togdheer iyo sidoo kale madaxda degmada Burco. ganacsatadu hadda jeer waa rugniga aan ku maartay tiirsanahay ama aan ku xidhanahay oo aan dhaqaalaha noogu laba ah wey. maadaama ay sidaa tahay waxa aan saaka ugu yeedhnay inaan tala ka siino oo qayb ka siino talada. marka nimkaan ku leeyahay waxa aan wadnaa in aanu u badino sanadkan 2020ga la yiraahdo dhinaca waxbarashada asaasiga iyo caafimaadka asaasiga. qaybo ka mid ah kala hadlaynay oo ay ka mid yihiin inta badan waxa loo dadaalaa xagga iskuulada oo kale ayaa loo dadaalaa maadiga. marka waxaan kala hadlaynay iskuulada ama macaahidda islaamiga ah iyo jaamacadaha islaamiga ah ee degmada Burco ku yaala sidii dhaqaale bileed aan ugu sameyn lahayn. geesta kale gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo wax ka weydiinay soo afjaritaanka jabhadda uu hogaaminayay Korneyl Caare ee go'aanka laga gaaray ayaa waxa uu gudoomiyuhu sheegay in arrintaasi si weyn u soo dhaweynayo isla markaasina ay tahay mid lagu bogaadiyay gudidii dhexdhexaadinta arrintaasi isu xil saartay. horta arrinta sanaxiga nabadgeliya darrada ka soo cusboonaatay waqtiyadii dambe waxay ahayd boog Somaliland ku taalay. arrinkaasina maadaama uu soo dhamaaday waa inaan guushiisa galbinaa oo waliba 100% ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad siiyay Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani aan ku mahadinayno iyo odayaashii kala shaqeynay. marka waxaan isleeyahay hawshaasi waa boog la daweeyay oo dawo loo helay oo aynu ka dhaqaaqi lahayn oo dadka inugu cadowga ahina ay markaa ka dhigteen dhufays badan ka dhigteen oo ay ka heleen oo ay ka dhigteen meel hadii jeer ay kaga dhiijiyaan. marka waxaan isleeyahay anigu waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala deeq laga helay. وخالد بكيلة ورركة فوقنا رقة حورتا ستار TV Burco.